السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. muuqaalkeena waxaynu ku eegaynaa xogo daaran Donald Trump madaxweynaha Mareykanka. Donald John Trump waa mulkiilaha shirkadda Trump Organization waana madaxweynaha 45aad ee Mareykanka. ka hor intii aanu siyaasadda ku biirinna waxa uu ahaa hantiile ganacsade ah. waxa uu ku dhashay 14 Juun 1946 dhakhtarka Jamaica Hospital Medical Center ee magaalada New York. iyada ayuuna ku barbaaray iminkana da'diisu waa 73 jir. xirfadiisa ugu weynina waa dhaqaalayahan, xirfad gacmeediisuna waa ciyaarta golfka. hooyadii waa Mary Ann McLeod waxaana ay ka soo jeedaa xeebta galbeed ee Scotland. isaguna waxa uu ahaa ilmihii afraad ee qoyskoodaas oo ka koobnaa 5 carruur iyo waalidkood. asal ahaanna awowyadii waxa ay ka soo hayaameen dhanka Jarmalka oo waa nin asalkiisu uu Jarmal yahay. Donald Trump aabihii waa Fred Trump oo u dhashay New York noolaana 1905 ilaa 1999. odaygaas Fred iyo isaga hooyadii Elizabeth Trumpna waxa ay aasaasan shirkad la magac baxday Elizabeth Trump and Son. waana shirkadda uu waayo kadib Donald u dooriyay magaceedaas The Trump Organization. uuna isagu madaxda ka ahaa ilaa intii loo dooranayay xafiiska madaxweynaha Mareykanka. Trump waxa uu dhalay 5 qof oo ay u kala dhaleen 3 dumar ahi waxaana uu leeyahay 9 carruur oo uu u yahay. saddexdiisaas xaasna ta ugu horeysay waa Ivana Trump oo ku dhalatay dalka Czechoslovakia sanadkii 1949 waxaana ay isqabeen 1977 ilaa 1992. xaaskiisii u labeysay taasina waa Marla Ann Maples oo ku dhalatay dalka Georgia sanadkii 1963 waxaana ay isqabeen 1993 ilaa 1999. iyada lafteeduna waxa ay ahayd jilaayad. xaaskiisii saddexaadna waa Melania Trump waxay 1970 ku dhalatay dalka Yugoslavia ee waayahana loo yaqaan Slovenia waxaana ay isguursadeen 2005. labadiisaas xaas ee horena furinkooda waxa ka dambeeyay inuu isagu dibadda ka magaalaystay oo uu khiyaamo sameeyay oo dibadooda ka quraabtay. ayaamihii 90aadkii waxa uu la kulmay Trump gabax iyo fashil aan dhaya lahayn oo ka soo gaaray dhanka shaqadiisa iyo ganacsigiisa. deymo aan yareenna waa lagu yeeshay waxaana fashilkaas sababay diyaarad helikobtara oo uu lahaa oo inta ay burburtay 3 ka mid ah maamulayaashiisii kaasinooyinka laysay, balse wuu ka soo kabtay oo kaalintiisii dib ayuu u buuxiyey. sanadkii 2005 waxa dhaqaalihiisa lagu qiyaasay 4 bilyan. iminkana waxa uu leeyahay shirkado iyo dhul aad u ballaaran. waliba waxa uu dhulka ugu weyn ku leeyahay magaalada Manhattan oo 1977 uu u arkay inay tahay deegaan la fursado ganacsi oo laga faa'iidayo uuna u guuray iyada. dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed waxa uu bilaabay 1987 sanadkii 2000 waxa uu go'aansaday inuu isu soo taago doorashada dalkaas ka dhacaysa isaga oo matalaya xisbiga Reform Party, balse ma uu helin shacbiyad iyo jamhuur qaabila oo uu isku hadlayn karo. dib ayuuna uga gurtay oo uu ka naagay oo ka tanaasulay. kadib waxa uu ku biiray xisbiga jamhuuriga waxa uuna damcay inuu ka qayb galo doorashadii 2012. haddana dib u gurasho ayuu sameeyay. aakhirkiina 2015 ayuu si kama dambays u go'aansaday inuu doorasho foolka foolo ku waajaho Hillary Clinton waxaana loo caleemo saaray xilka 20 January 2017. Donald Trump waa madaxweynihii ugu horeeyay ee qabtay jagada madaxtinimada Mareykanka isaga oo aan dalka u soo adeegin adeeg ciidan iyo adeeg kale toona. waana madaxweynihii ugu da'da weynaa ee xilkaas qabta. markii uu doorashada maaganaa ee uu bulshada u khudbadeynayay waxa lagu tuhmay been iyo isdabamarin iyo war aan jirin inuu dadka u sheegayo. badiba warbaahinta waaweyn ee Mareykankuna way dhaliishay, balse isaga ayuunbaa ku guulaystay doorashadii maadaama ay reer galbeedku adeegsadaan qaacido haddii aad doonayso inaad noqoto siyaasi waa in sifooyinka wanaagsan oo dhan aad ilowdaa. waa inaad munaafiq beenaale oo ballanka bax badan noqotaa. waana inaad dantaada oo keliya u adeegtaa. Trump siyaasaddiisu way caddahay oo dhanka Israa'iil iyo Falastiin
kaalin muuqata oo aan cidna ka daahnayn ayuu iska taagay, waxauna ku baaqay in dadka reer Falastiin laga raro deegaanada ay Yuhuuddu haystaan oo deegaanada aanay weli Yuhuuddu qabsan la geeyo si qodobkaas looga dhabeeyana. Ugu horreyntiiba waxa uu Qudus u aqoonsaday magaalo madaxda Israa'iil. Safaaraddii Mareykankana si rasmi ah ayuu uga dhidbay. Dhowaanahana waxa uu waday arrin uu ugu yeedhay heshiiskii qarniga ama safqatul qarn oo uu qodobkaas uun ku xaasilinayo. sidoo kale waxa uu caan ku yahay islaam nacayb iyo in si kasta oo uu u horjoogsan karo inay muslimiintu Mareykanka galaanba uu u horjoogsado, balse waxa uu muslimiinta kasii necab yahay Meksikaanka oo uu ku dhaliilo inay dalkii daroogo ku qarqiyeen, dhibaato iyo rabshadana ay ka aloosaan. waxa uu sidoo kale horjoogsaday in dhalasho la siiyo carruurta muhaajiriintaas ee dalka ku dhalata. xogaha guud ahaan laga soo tebinayo Donald Trumpna waxaa ka mid ah weligii ma uu cunin daroogo, mana uu qiijin sigaar, maandooriyayaasha kalena wuu ka gaabsadaa. taasna waxa sababay walaalkiisii ka weynaa oo isagu diiday inuu shirkadahooda maamulo oo doortay inuu duuliyo noqdo kadib markii uu si xadka baxa u adeegsaday khamriga iyo sigaarka. Trumpna sidaas ayuu uga gaabsadaa maandooriyayaasha iyo sigaarkaba. waxa uu ku digtaa dadka marka uu salaamayo oo xataa madaxda marka uu gacan qaadayo dhankiisa ayuu u soo dhuftaa oo uu u xoog sheegtaa. waxa uu helay abaalmarino kala gedgedisan balse dhaqaale u badan. waxa uuna alifay buugaag dhowra oo ay ka mid yihiin The Art of the Deal, How to Get Rich, Surviving at the Top iyo kuwo kale oo la mida. Odhaha dhaxalgalka ee laga dhaxlay Donald Trumpna waxaa ka mid ah aalaaba way wanaagsan tahay inay dadku ku dhayalsadaan oo aanay muhiim kuu arag. qodobka ugu horreeya ee uu qoro xoghayuhu waa madaxweynaha. kullayba waad hurran tahay inaad fikirto oo maskaxda rogrogto maxaad si mugle ugu fikiri weyday. mararka qaar maalgashiyadaada ugu wanaagsani waa inaadan maalgashiba samayn. haddii uu qof kula loolamayo qallafsanow, adkow oo dugaag ahow. naxariis la'aan wax tamar ah ma yeelanaysid, tamar la'aanna waxaad gacanta ku hayso ayaan jirinba. ugu dambaynta laguguma qiimeynayo waxa aad ballan qaaday ee waxa lagugu qiimeynayaa waxa aad qabatay. yacni wax kasta dadka u ballan qaad markaad doorasho doonayso, hadhow markaad xilka ka degto kaliya waxa la tibaaxayaa wixii aad qabatay uune. waana siyaasadda aad moodo inay Soomaalida iyo guud ahaanba madaxda caalamku maanta raacaan. inaas ayaynu kaga koobsanaynaa taariikhda iyo sooyaalka Donald Trump. wassalaamu calaykum.